waxa jira biilo had iyo jeer aan ahayn alaabta aad soo iibsato oo waxa weeye hadana lagu soo dalaco vendors-ku ay ku keenaan light-kii baa kamid ah biyihii baa kamid ah electricity-gii baa kamid ah telephone-kii baa kamid ah internet-kii baa kamid ah aynu fiidiyogan waxaynu ku eegaynaa sida aad biilasha noocaas aad u gelin lahayd at the same time marka aad soo iibsato tusaale ahaan office supplies oo kale iyo waxyaalaha aanad inventory-ga aad iibinaysa aan ahayn sida aad biilashooda aad u gelin lahayd marka la inventory-ga aad iibinaysa aan ahayn waxaan u jeedaa waxyaalaha consumables ka dhaho ee markaad soo iibsato aad expense gareynayso halkan aad tegaysaa interface markaad tagto halkan waxaad ka dooranaysaa intii biilku uu kaaga yimi tusaale ahaan kaa utility company kale ayuu iiga yimi reference numberkoodu waxaad tidhahdaa 1212 weeye 1212 utilities buuxa oo account-kooda utilities-ka waa kan iska soo dhigay waxaad tidhahdaa tusaale ahaan waxay igu soo dalaceen $100 online bay igu soo dalaceen halkaa amount-igi waxa weeye $100 ayuu geliyey halkan waa dhigay biilka dheedkay igu soo dalaceen markaa waa la teed bay ahaayeenoo biilkan lagu soo dalacay bishii 10 labadeedii waxaa layga rabaa bisha 11 koodeeda in aan bixiyo ayaa layga rabaa halkan haddaan taariikhda biilka lagu soo dalacay aanay tan kugu doortay aanay ahayn waa bedeli karaa halkan waxaan ku qoranayaa miimada waxay ahayd lacagtan tusaale ahaan biilkii light-ka bishii hore haddii biilkan aan يعني charge gareyn lahaa shaqo aan customer u hayo ama customerka oo uu biilo buu ahaan lahaa halkan aan customerkii ama joogkii aan ka dooran lahaa laakiin iminka so far inta aan u baahanahay waa intaas muuya waxaan doonayaa inaan iska xidho kadib waxaan dooranayaa save and close haddii aan doonayo inaan mid cusub ku darsana save and new baan odhanayaa markaa iminka save and new aan idhaahdo si aan mid kale cusub u geliyo waxay noo yimi biilka wuxuu ka yimi telesom company uu ka yimi waa kaa account-kaydu markii hore aanu lisii automatic oo filgaree waa kaa soo bixiyay imika waa internet expense marayay haddaan internet expense yahay oo tusaalahaan telephone expense yahay halkan aan ka dooran karaa ee waynu kala jebin doonaa waxa weeye waxay igu soo dalaceen $70 oo kan muxuu ahaa account-kani telephone expense $70 oo ah telephone bill for the month of September. Okay, can I do it? Because all the actual criteria, internet expense yahay, internet ka igu soo dalaceen $5 inuu iga xiran yahay oo internet expense yahay. Internet bill the month of September. Okay, markaan intaas sameeyo reference number baan gelinayaa haddii biilkoodu reference watay waxa weeye GOM number ay wateen halkaasaan gelinayaa waxaa leeyahay iminka way iga dhamaatay waxaan rabay waan geliyey save and close ayaan leeyahay okay markaad biilkii lagu soo dalacana sida aad u gelinaysaa cookbook waxa weeye waa sidaa yareefo haddii biyo lagu soo dalaco haddii leer lagu soo dalaco haddii telefoon lagu soo dalaco haddii kiro lagu soo dalaco haddii internet lagu soo dalaco haddii waxyaalaha noocaas lagu soo dalaco